daawade ma ku fikirtaa inaad maroon ku biirtid tareenka ganacsiyada guulaysto oo aad noqotid loo shaqeeye halkii aad shaqaale ama baagamuuddo ahaan lahayd? waxaan maanta halkan kugula wadaagayaa haddii alla weynuhu oggolaado 5 qodob oo ku saabsan sida hal-abuur ganacsi oo guulaystay loo curiyo adiga oo weliba aan qarash badan amaba wax lacagaba haynin. tallaabooyinkan aan kula wadaagi doonaa waxa ay kaa caawinayaan in aad gaadhid yoolkaaga weliba sida ugu dhibta yar. haddaba dhowrkan step oo aad sida ugu fudud u fulisaa waxa ay kaa dhigi kartaa inaad bilowdid oo aad sagxadda ka soo bilowdid ganacsigaaga ee bal ku soo dhawow muuqaalka koobkaaga shaaha ahna soo dhaweyso. tallaabada koobaad, fikrad ururin iyo kala shaandhayn. tallaabada koobaadi waa mid ka kooban 2 qaybood oo muhiim ah. qaybta koobaad waa inaad samayso fikrad ururin. fikrad ururintu waa shaqada ugu horeysa ee ay tahay inaad qabato, sidoo kalena waa shaqada ugu culus ayaynu odhan karnaa. in fikrad midho dhal ah oo guulaysanaysa la helo waxaa laga yaabaa inaynu u haysanno arrin aad isaga fudud, laakiin arrintu waa sidaas cagsigeeda. waxaadna ogaataa daawaday haddii aad heshid fikrad midho dhal leh 50% yoolkaaga inaad gaadhay. hana ka warwarin maalgelinta iyo kharashka ku baxaya fikradaada haddii ay fikradaadu ku qanciso oo ay kuula muuqato mid suuqa saami fiican ka heli doonta ku dhaqaaq iyada. inta aynaan tallaabada koobaad ka bixin, howlgalka xiga ee aad qaadaysaa waa kala shaandhayn. marka aad fikrad ururin samaysid waxaad helaysaa fikrado door ah. haddaba si aad hal-abuuro ganacsi oo guulaysta u noqotid waa inaad fikradaha aad soo ururisay sii kala shaandhaysid oo aad kala miirtid ta ugu muhiimsan uguna macquulsan aad ka dhex qaadatid. daawade iskuiskan markaad maraysid taxadar aad u badan samee. fikradda aad dooranaysid ha ka eegin hal dhinac oo keliya, sida inaad u eegto in faa'iido badan laga helayo ama mid fudud oo markiiba la qaban karayo. waxaasiba waa qodobo muhiim ah, laakiin waa inaad qaadataa fikradda duruuftaada iyo kartidaadaba la jaan qaadaysa. hal arrin oo sir ahna iga qabso daawade, balse intaanan sheegin ka hor aan dib kuu xasuusiye channelkana la taageer daawade adiga oo mahadsan. sirtu waxay tahay fikradda ugu wanaagsan ee horumarka samaysa waa ta aad ka soo dhiigatay baahi markaa jirta. weligaa ku dadaal inaad baadhid baahiyaha deegaankaaga ka jira. marka aad soo ogaatid baahiyahaas xalkoodu waa adiga fikradaada ganacsi. alxaajatu hiya umul ikhtiraac. qodobka labaad, fursad baadho. fursaduhu waa marle arag. waxa ay dadka soo maraan xilli aan la xiisaynayn, ka faa'iidaysigooduna waa ta la isku dhaafay. fikraddii aad dooratay waa inay heshaa kansho ay ku korto. ereyga kansho waa ereyga ugu saxan ee aynu isticmaali karno dabcan, inkastoo ay inta badan ugu badan yihiin isticmaalka ereyada fursad ama chance, haddana waa kuwa ka yimid afaf qalaad. ereygeennan ayaynuna isticmaalkiisa ka doorbidaynaa. ha sugin inta ay ku soo marayso kanshadaadu ee adigu doondoon meelaha ay ka adeegato ee laga helo. fursadahana waxaa ka mid ah koritaanka tiknoolajiyadda, isbedelada suuqa, xeerarka dawladdu soo saarto, suuqyada dibadda iyo wixii la mida. meelahaas iyo meelo kale badan ayaa laga helaa jaanisyada. ta saddexaad amaba tallaabada saddexaad, fursadaada horumari. marka aad soo heshid kanshadii aad baadhaysay laakiin nasiib darro ay yeelatay caqabado dhowra, ha tuurin ee horumar ku samee. ogowna daawade caqabad kastaaba xal bay leedahay. fursadda aad heshay daraasad ku samee, sii horumari, waddooyinkana u sii sifee si ay u noqoto fikrad guulaysata. tallaabadan waxaad ka helaysaa inaad khataraha imaan kara yaraysid. daawade midna ogow oo haddii aad doonaysid inaad noqoto hal-abuuro ganacsi waa in lagaa helaa sifada riski-takarnimada ah, ama waa inaad ahaataa qof khataraha u badheeri karaa. haddii aad fashil iyo guuldarro ka baqaysid laguguma tilmaami kara hal-abuuro ganacsi, lagamana yaabo inaad meel fog ka gaadha ganacsiga. soomaalidu waxay ku mahmaahdaa intaad fog tahaa la faytaay. qodobkani waxa uu kaa caawinayaa in inta aad fog tahayba aad waddadaada sii xaalatid. qodobka afraad, qiimee kanshadaadii. markii aad horumar ku sii samaysay fikraddii aad dooratay iyo fursaddii ku habboonaydba waxaad samaynaysaa qiimayn. waa inay ku caddaataa waddada aad u mari lahayd guushaadu. hadhow wax soo saarkaaga amaba adeegga aad qaban doontaa muxuu noqon doonaa.
fursadaha suuqa ka jira, sideed uga faa'iidaysan kartaa, hantida uu u baahan yahay in lagu maalgeliyo mashruucaagani waa intee, si faa'iido intee leeg ayaa ka soo xaroon kartaa. Su'aalahan iyo su'aalo lamida ayaad isweydiinaysaa daawade si aad u bilowdid hawshaada. Tallaabadan aan soo wada waa tii ugu dambeysay ee ka baaraandeg. haddii ay ku qanciso hawsha aad waday, sidaasaad ugu dhaqaaqaysaa. haddii ay jiraan wax aanad u bareeri karinna, waa halka aad xisaabahaagii hore kaga noqon kartid. Tallaabada 5aad, diyaarso tiimkaaga. waxa ay yidhaahdaan rugcadaayada ganacsigu, si kasta oo aad u haysatid fursado guulaysan kara, shaki kuma jiro inaad haddana guuldarraysan doontid haddii aanad haysan koox u diyaarsan hawshaada, kuwaas oo leh karti iyo weliba xirfad sare. marka aad fikradaadii qiimaysid ee ay kuu soo baxdo inaad waddo saxan ku taagan tahay, waa inaad hawsha bilowdaa. waxa ugu horreeyaana waa inay ahaadaan dadkii kala wadayay. haddii uu mashruucaagu yahay mid iska kooban oo aad keligaa fulin kartid, waa halkeeda. laakiin haddii aad u baahan tahay cudud shaqaale, waa inaad ka taxadirtaa cidda aad mustaqbalkaaga faraha u gelinaysid. umana baahnid asxaab iyo ehel kula shaqeeya, ee waxaad u baahan tahay shaqadan cid ehel u ah oo guulo keeni karta. barnaamijkan waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeen Mustafa Ismaaciil, oo ah nin aqoon dheeraad u leh arrimaha ganacsiga. ugu dambeyntiina daawade, haddii aad xiisayso mowduucyada noocan ah, waxaanu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto adigoo subscribe saaraya channelka. mahadsanid.